jawzi rahimahullah dadka salaada tukanaya shan buu kala qaado wuxuu yiri qolo salaada ay tukato adduunkan iyo aakhira ilaahay waa ku cadaabi buu yiri waa kuwa salaada marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqadeediyo iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yiri fawaylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun salaada way tukadaan laakiin awqadeeda xilligay rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaadooda ilaahay waa ku cadaabaya baa leeyahay qolada labaad waa qoladee salaada way tukadaan jamacana way ku ilaaliyaan masaajidana way yimaadaan laakiin qalbigoodu xaadir ma aha min albidaaya ila nihaaya salaadoodu waa sahwi kuwana salaadoodu ilaahay bay hortaallaa hadduu doono ilaahay waa ku cadaabi haddii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culimadu yidhaahdeen salaada saddexaad waxa weeyaan uu tukanaya salaada jamciya jamaacadii masjidku ku ilaalinaya laakiin markuu salaada yimaadana wuxuu bilaabaya jihaad buu bilaabaya qalbigiisii buu shaydaanku la tegaya deedna uu ka soo celinaya haddana uu la tegaya uu ka soo celinaya ka salaada intuu la yimideen ilaahay baa u qorayo ka aqbalaya inta ka dhimana ilaahay waa ka cafinaya baa la yidhi salaada saddexaadna waa salaada maaragtaani awliyada istaciinuu bisabri wasalaa waa kuwa maaragtaani xawaa'ijtooda baahida ay leeyihiin markay arrin ay la soo daristo waxay leeyihiin salaad baan ku ordayaa hadday ceedeeda iyo dayaxa isbedel ku dhaco salaad baa loo jideeyey hadday abaari ay timaado salaad baa loo jideeyey hadday cabsoodaan salaad baa loo jideeyey hadday masiiba ku dhacdo salaad baa loo jideeyey hadday muraad iyo xaaje yeeshaan salaad baa loo jideeyey hadday arrin khayr iyo shar inay u leedahay kala saari waayaan salaat al-istikhaara loo jideeyey istaciinuu bis-sabri was-salaa duulka afraadi waa duulkee xawaa'ijtooda adduunyadana ay leeyihiin waxay muraad leeyihiin hebel iyo heblaayo noogu sheeg ma yidhaahdaane masaajidka intay soo galaan bay baahidooda ilaahay u sheegtaan salaada shanaadna waa salaadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa salaaduu nebigu yidhi arixnaa biha yaa bilaal kacoo salaada inoogu raaxehan ku raaxaysanna xubbiba ilayhi min addunya halaath adduunka waxa yaalla saddex baa aniga lay jeclaysiiyey buu rasuulku yidhi waxaa lay jeclaysiiyey atiibu waxa wixii udugee udgoon والنساء يا هوينكنا والله جعليسيي وجعلت قرة عيني في الصلاة هلك إنها يجي قلبي كوكا بوبيانا صلاة الله يلي النبي يقول عليه الصلاة والسلام مركز صحابة رسولك صلاة سيبرتين يكو إن صلاة كرة حيستان إن صلاة أي النقطة ما المركز صلاة أي حدان الدنيا بأي كتجان نين علماء السلف كمدها يا مرة اللي مركز صلاة حدو ثابت البناني بالرجل أبو مسلم رحمه الله وعلى قيد الصلاة أنا تكنيسد أنا كوان لا نسيت كويس هذا صلاة مرة اللي مركو صلاة تكن للمرأة كذا هذا ناس وحيل كابت من أجل الصلاة ل20 سنة وتنعمت بها 20 سنة بويري صلاة الروح ده بدن كيجا حقيقة ده إن قالوا لبعض سنة أيام الصوت تبعي من الصوت ده لي هذا لبعض سنة وكل راح يستقبل الصلاة داس كيفية الصلاة ده تكتنوشك بالغيري ويقول نمان يهانو صفك مركا عن قلب ولا إمامك عن قداشي سيستاقين صلاة حيران هايو وحان استحضار عن كل صوح حاضر صلاة قلبي جيجا يوم يقوم الناس لرب العالمين وحان كالسوق على صفك المسكيد كأنجو جينو يهكي محشر كبنك قيامة هل كاسر مركا كحدا بولي صلاة إن الإله يرتاقن هاي بصوح حاضرية اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلهي واحد عابدا سي واحد أديك واحد جيدود أركيسو حداد أديك أركين إلهي جل وعلا سقاكو أركاي وحولي مركا وحن كفكرا مركا صلاة دحديدة كي حق مدق إيجي حقي وملايكتو أي قادون لي إلهي باكو يري حسابتها لقوقو يري صدقاء هذانا كي بدحدي إيجي حقي والله قاضي كي يقدم بيي والله قاضي كي يقهر ريي والله قاضي waxay salaadu ii dhamaataa aniga oo marka u dambaysa qalbigayga ku soo xaadirsaday maxsharkii banka qiyaamaha kaliga baa ku haray hadda ilaahay ku yeedhi doonaaye maxaad ilaahay kala kulmi doontaa dareenka iyo shucuurta baan salaadeeda ku dhamaystaa buu yiri ay reesli ninkuna dareenka ku dhamaysataa masaajid annagu habeen ku tukanayna buu imaamkii salaat al-isha وأما إن كان من المكذبين الضالين مساجد قدام بعد آمين وركعت إلا بعد صلاة العشاء أنا وأكو جرا صفقة هوري
salaadii markii laga baxay buu imaamku yidhi war aamiinta labada halkeed ka keenteen wallaahi mid xagga unbaa bilaabo waa la bilaabnu midhaan wallah waa ku daray laa ilaaha ila allah markaa mid baa yidhi sheekh kuwaas wayba qayliyeene waxa maanta muslimiin ilaa man raxima rabbii masaajidda ku tukanayoo dhan way naga dhex qayliin mooyaane adduunyaduye kulligee gudaha ka wada hadallaa buu yidhi والإنابة إلى دار الخلود من أسباب الهداية إنه قلبك قفك النور الهداية أي دكتي وحال لقو قرتابو يري رسولك دار توارتانك وصاحبك إلا لقو بين أيو أيو قفك مؤمنك قلبك سجع العذاب رسولك والاستعداد للموت قبل نزوله والاستعداد للموت قبل نزوله على مدى صدح هذا مؤمنك لقو قرتا وحاكمد يري رسولك انت قفك مؤمنك اجشو ايسن كو ايمن اسغا دمشدا و ديار من منا لا يكره الموت كما انت مسلمين تا نولش يا غيريدا نولش جعل الله اشياء ماتريالك يا لعقتا يا عملك الصالحه qalbigeenu haday dhibaata ay nagu timaado wuxuu u iilanaya lacagtu u iilanaya wuxuu leeyahay lacag hadaad hayso mashaakilka way xalismaysaa khaliq ya makhluqana maanta umadu way kala garan laadahayba khaliq ya makhluq ilaahay ma doonayo qalbiga meel kale inuu u jeesto ilaa xaqiisa mooyaane waa meesha ilaahay adoonka uu ka fiiriyo rasuulku qalbigu علينا أن نحسن منظر الرحمن منا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولله المثل الأعلى أو الشقادة هذه كيم دي هذا قولك هردد هذا قلت ما دحاس كاغي ونكل ولا فدي كور ولله المثل الأعلى هل كإلهي ما جعله ما نربو إن لقوا أرك جعيلك لا يعبسك لا يرجك لا يبريك لا إلى بريدي سي عبسدي سمويان وحمنت كلية جرك الله شاقين كليته القلب دعمه هو اللبو لقوه هو اللبو عنده هو اللبو سنكه هو اللبو دبنه هو اللبو دقوه هو اللبو وفرسه كليه هو اللبو قربه هو اللبو بودده هو اللبو لكن قلبك هو مد كلية بحا قلبك مد لوغا دقي وحمنت كلية جرك بنا هذا كما مشبه رسولكم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والنبي يقول ألا وهي القلب حمين باكو جرت جرك بني آدمك هدي حقاك تجرك ودن با حقاقي هدي باناتنا جرك ودن با بانان تاسنا وقلبك أبو النبي يقول هدو قلبك حقاقو قلبك معوكو حقاقيا وإلهي معرفة ديسا هدي قلبك معرفة إلهي أي دكتو حبنها بني آدمك وحي نقونيان حبنا مرنا إلهي عن عسياقي سكو داعي مرنا إلهي إني عاصيان وأدكان ما دام حمنتاسي maanta ay bukootay indhaheeni waxay rabaan bay eegayaan dhagaheeni waxay maqlaan bay dhageysanayaan gacmaheeni waxay rabaan bay qabanayaan lugaheeni meeshay rabaan bay aadayaan dhaqaalaheeni meesha rabna ku bixinaynaa hadalkeeni meesha waxaan doonaan ku hadlaynaa waxaan doon Hasan al-Basri rahimahullah ayaa yiri 30 sano maan qoslin 40 sanana maan kaftamin waxaan soo gaaray rag iyo aqwaam waxaan soo gaaray aan markaan la joogo aan isku maleynayay inaan anigu tuugahan isku maleynayay wa imaamke wa khayru tabi'in wayaan wa aalimki tabi'inta ugu cilmi badnaa wayaan waxa hadal kale 30 sano maan qoslin buu yiri 40 sanana hadal kaftama igama soo bixin waxaan soo gaaray aqwaam markaan la joogo nagtooda joogana anigu aan isku maleynayay inaan ahay tuug wa Hasan al-Basri ninka sadaaqay hadday jirka xubinta hadday hagaagto arabkaagu uu hagaagi maqalkaagu uu hagaagi hadalkaagu uu toosi ficilkaagu uu toosi calooshaada xaraan ku dhici mayso gacantaada maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meel ilaahay ka raali ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi laanahay maanta ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka ilaahay amarkiisa ilaali adiga ilaahay baa ku ilaalin
nin culamadii salafka ka mid ahaa 120 jir buu noqday daadiis ayuu gaaray tiinuhuna ma cadaanin waa 120 jir 20 jirka socodkiisu ku socda 20 jirka sidiisu u hadlaa xooga 20 jirku leeyahay sida 20 jirku u tallaabsada waxa lagu yiri da'daadii waa ta dhaqaaqi leh dhalinyaradii ka yaryaraydo way buusbuuseen way gaboobeen adoo maxaad cuntaa baa laga yiri noo sheeg wuxuu xadiiskaas ku amal falaa buu anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana yaa ku ilaalin ilaahay nicmada araga ilaahay kuma caasin buu yiri ilaahay aragiibu quwadii aragu ilaaliyay buu yiri nicmada maqalka ilaahay kuma caasin ilaahay quwadii maqalku ilaaliyay buu yiri nicmada maaragtaani xoog iyo dhalinyarnimada ilaahay kuma caasin nicmadii dhalinyarnimadii iyo xoogii baa ilaahay ilaaliyay ihfadillah yahfadka ba ku shaqeeyaa buu anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalinay inagana maanta dhalinyaradeenna eega 20 jirkoogii baa buusbuus kasratul macaasi waa macaasida weeyaan amarkaan nidhi xor baan ahay ikhtiyaar baan leeyahay waxaan doonaan eegi waxaan doonaan cuni waxaan doonaan samayn oo yaa ka yidhi xor baa tahay addoon ilaahay baa tahay haddaad xor aad tahay oo xorriyad aad sheeganayso maxaad la gaboobi maxaad la buusbuusi maxaad la bukooni maxaad la dhimani maxaad la walwali maxaad la abaaroobi maxaad la cabsani ninka xorriyad gaadhay waxaasoo dhan waa inuu ka bogsado khalaas waa xor la yidhaha ma jirto kullu bini aadan waxaa adduunyada joogoo dhan waa ilaahay addoomihiisii addoonna sifada addoonkuna waa sifadee berigii addoomaha la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa tegey meesha markaa addoomaha lagu gado markaa buu soo iibsaday meheradiisii buu la yimid waa addoon buu soo gatay meheradiisii buu la yimid markaasuu yidhi magacaabaa lagu yidhaha waryaa wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa magaca adigu aad ii bixisaa magacii noqonaya buu ka yidhi markaasuu yidhi dharka maxaa jeceshood xidhataa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa dharka adaad ii xidhoon baa dhar ii noqonaya buu yidhi markaasuu yidhi raashinka maxaa jeceshood cuntaa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa raashinka adigu aad isiisoon baa raashin ii noqonaya buu yidhi markaas war balkan eega buu yidhi waxaan weydiiyey baan igu soo celine war adu maanad ikhtiyaar lahayn buu ka yidhi markaasuu yidhi addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay buu yidhi hada macna addoonka macnihiisu waa saas addoon wuxuu raba ma eego wuxuu raba kuma hadlo wuxuu raba ma cuno meeshuu raba isma taago suu doona uma socdo walaa tamshi fi lardi maraxa innaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula baa ilaahay dhulka markaad socotana kibir iyo khoyaalaha u socon baa ilaahay ku leeyahay dhulkana ma dilaacinaysid buurahana dharar ma gaadhaysid bini aadan xariya kaadila daciifa tahay hay naga buuxa waxa musqusha ka buuxa adaa ka buuxiyey anaa ka buuxiyey hay naga buuxa dadkan soo socdoo dhan waa wada bulaacad socota ilaahay baa nasakhiray mooyaane waxaan nahay ma jirto waxa qiimo ku leedahay waa ilaahay taacadiisa waa ilaahay macrifadiisa daatanaadu qiimo male sindhaya kaadiya dhiig iyo biya ka buuxa waxa bini aadanku ay haystaan maanta ku faanayaan ana ka dhaqaale badan ana ka fooq weyn ana ka meherad weyn ana ka reer badan ma jiro waxaasna wax ku taray ma waxaas man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu ba nabi guri niga maalika qiyaamaha amalkiisu uu la haro uu amalkiisu dib u dhigo reerka uu ka dhashay hore ma u dhigayaan hore ku dhigi maayaan إيمان يا أعمال با إلهي دون يا ولا ليال كن عبدا لله جل وعلا لحدا السنة هاي ستاكلية لحدا كاسنا وحال الدون يا إن أظن ولا تو صدا الدونك الدون بات